السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن داودة ملكس الدنيا ذكي شوكتو وقت يا كو سلامتها هاي يا منصب كاجا. طبعا ما أنت قف كميدا أصحاب تيدا أيا سيجارة وح يودي كلمة ده هنا حضارية إنتاج أيلاد هاي طبعا قبل ذلك كلمة ده هنا لقى هذا بل حضارة ده يعني كهراين إن كلمة ده هنا أيلاد هاي فيديو غني وفيديو سعون دونا دقيقة كوبان لكن إنه كان دونا عدين فربدان waxa lagaga hadlaa gobolka Awdal soo kale waxa lagaga hadlaa gobolka Gabiley soo kale waxa lagaga hadlaa Djibouti Jigjiga iyo geeyga Soomaaliyeed meel kale oo fara badan dabcan hadii aynu tagno cadaymaha aynu hayno iyo xadaarada kelmadan ay leedahay asal ahaan kelmadani ma kelmada caalamka kale ay ku hadlaanba mise waa kelmad u gaara dadka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyiga dega ama dega Djibouti iyo dega dabcan Ethiopia waliba Jigjiga toos waxaynu u aadi doonaa bal hal mar cadaymahan ila fiiriya dabcan wadiyaabi doontaa wana saaid bay u layaab badan tahay hal mar bal cadayntan ila eeg fanaanadan magaceegu waxa weeye abaylekom waxayna qadaa yane habashano waa gabadh reer Ethiopia dalka America ku nool kelmadda huno ayaa waxay ku soo dartay heesteeda si la yaaba hal mar bal klibkan ila fiiri طبعا waxaan rajaynayaa in aad si fiican u dhageystay hal mar oo kale ku celinayaa bal u fiirso ma hasantahay طبعا waan ka helay adiguna waad ka heshay soo kale maxaad ka ogtahay qarabka instrumental huno ee dalka Spain ka caanka waxaana loo yaqaanaa casibero huno hadii luqada Englishkana waxa loo yaqaanaa instrumental luqada Isbaanishkana waxa loo yaqaanaa casimero okay bal maxaad ka ogtahay qalabkan iyo magaciisa hal mar bal ila fiiri screenshot kan aan qalabkan ka soo qaaday soo kale bal qalabkan si fiican u daawo dabcan wad ma hasantahay okay maxaad ka ogtahay boqortooyada Attila Huno ee Romaanka la dagaalantay qarniyadii 1840 maxaad ka ogtahay waxay ku magac dheer tahay Attila Huno waxana weeyii boqortooyo taariikhdeedu caan ka tahay dalalka Yurub dhexdooda bal hal mar ila fiiri boqorkii Attila iyo empire-kii xiligaasi u dhisna dabcan waad rajaynayaa inaad ku qanacday Attila Huno iyo taariikhdiisa iyada oo dabcan qaadanaysa waqti fara badan fiidiyogan waxaan ugu talagalay waqti kooban soo kale maxaad ka ogtahay in boqorka labaad ee Attila Huno la shaqeyn jiray Netherlands Huno screenshot ayaan ka soo qaaday dabcan waad fiirin kartaa si fiican u daawo waxayna ku cadaynaysaa xadaariyada kelmadda Huno ay leedahay iyo meelaha ay ka timid iyo caalamka meelaha laga isticmaalo sidoo kale marka Europeanka laga yimaado bal wadamada Aasiya kelmadda Huno micne intee leeg ay ku leedahay heesta Hindiya ee fanaanada ay ugu jecel yihiin Hindiyaanku Super Gargi heesaheega waxa kamida Huno Rahuna Borgoti hal mar bal si fiican ila fiirso qoraalkan heestana bal si fiican ila daawo warajinaya dabcan inaad ka heshay waliba u bogtay sidoo kale maxaa ka ogtahay fanaanada Arita Sunha heesteeda ugu caansan ee Bishari Minibun songi Huno Hamochi bal hal mar ila fiiri halkani dabcan waxa dareentay xadaariyada kelmadda Huno ay leedahay iyo caalamka inta meelood ee laga isticmaalo sidoo kale waxaan tagi doonaa bal har mar isla fanaanada Arita Sunha heesteeda labaad ee Huno oo screenshotkayga si fiican ku tusi doono hal mar bal halkan ila fiiri wow dabcan taariikhda kelmadda Huno waxay leedahay asal ama sal qoto fog ay leedahay waxayna caan ka tahay dhamaangeyga Europeanka sida wadamada Aasiya iyo Afrika oo Soomaali badan kelmadan ku heesto sidoo kale maxaad ka ogtahay heesta Breti Kamaria Side ee ugu caansan Hindiya sidoo kale heestan waxay kamid tahay heesaha filmaantooda lagu soo bandhigo waliba filmaanta Bollywoodka waxa loo yaqaanaa Huno Kabarati Barihe bal hal mar ila fiiri screenshot kan daawo soo kale waxaad eegtaa bal heestan iyo qoraalkayga gunti iyo gunaanadkii barnaamijka waxaan rajaynayaa dabcan inaad ku qanacday
wax badan oo kamid ah cadaymahani iyo kelmadda huna asal ahaan salka ay leedahay iyo xadaariyada fog ay leedahay guntiga gunaanadka barnaamijka waxaan ku leeyahay dabcan haddii aad wax badan ka faa'iiday hore bulkana cab maalin wanaagsan baan ku rajaynaya farxad ku qaada maalintada salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan dib u kulmi doonaa